caalamka waxa uu soo maray dagaalo iyo xiisado dhinacyo badan salka ku haya sida dagaaladii koowaad iyo labaad ee dunida iyo dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyay quwadihii bariga iyo galbeedka. inkasta oo 20 sano ee lasoo dhaafay caalamka uu la daaladhacayay waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada, haddana waxaa hareer socda dagaalka xagga dhaqaalaha ku salaysan ka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. waana mawduucan maanta aan si kooban ugu eegayno barnaamijkeena ogaalka dunida ee toddobaadkan. dagaalka u dhexeeya labada dawladood ee Shiinaha iyo Mareykanka waa mid lagu tilmaami karo dawladda doonaya in xoolahoodu aanu isku meel daaqin, haddana aanu lahayn jiha ay ku maareeyaan inta yar ee isugu darsan. canshuuraha laga qaado badeecooyinka labada dal ay isu dhoofiyaan waxa uu qayb ka yahay muranka xagga ganacsiga ku salaysan ee markii dambe isu bedelay dagaal xagga afka ah. Shiinaha canshuurta uu ka qaado badeecooyinka ka yimaada Mareykanka waxay kor u kacday 8 ilaa 12%, halka kuwa Shiinaha u dhoofiyo Mareykankana ay kor u kaceen 3 ilaa 21%. dagaalka ganacsi ee labadaasi dawladood u dhaxeeya waxa ay si weyn u sii shaac baxeen kolkii ay yeesheen kulan labada hogaamiye sanadkii 2018. taana waxay keentay in 25% hoos u dhac uu ku yimaado badeecadaha Mareykanka uu dhoofiyo Shiinaha, halka Shiinaha qudhiisuna ay hoos u dhacday 20%. Shiinahu inkasta uu dhoofinta wax soo saarkiisa Mareykanku ay reebtay raad adag, haddana wuxuu darbajahada u rogay caalamka kale halka uu ka helay 4%, laakiin taasi Mareykanku suurtagal uma noqon. xasilooni la'aanta suuqyada maaliyadaha Mareykanka waxa dhici karta in ay muddo dheer ku sii jirto haddii aanu isbedel ku imaanin ka oo ku saabsan wax soo saarka guud oo ah mid aan cadayn heerka uu gaarsiisan yahay. sidaana waxa qoray warsidaha falanqeeya arrimaha ganacsiga caalamiga ah ee Export Economics. dhinaca kale guuxa iyo xiisadaha u dhaxeeya labada dal hoos u dhac la tilmaami karo kuma aanu keenin sicirka ganacsiga ee ka dhaxeeya, balse sanadkii 2019 waxa uu hoos u dhacay $60 bilyan sanadkii. shirkadaha Shiinaha laftooda uma muuqdaan kuwa doonaya in ay hoos u dhigaan qiimaha wax soo saarkooda, maxaa yeelay waxay doonayaan in magdhow ay ka bixiyaan canshuurahaasi. waxay haddaba taasi muujinaysaa in qiimaha badeecadaha Shiinaha oo ay ku jiraan canshuuraha wax soo dejinta ay in yar kor u kaceen, laakiin aan saameyn aan ku yeelan waxa loo yaqaano BPI ee wax soo saarka. xurgufta xagga ganacsiga ku salaysan ee Mareykanka iyo Shiinuhu waxay daaha ka rogeen sida ay muddo dheer u sii jiri doonaan xurguftaasi. Mareykankuse wuxuu u muuqdaa in uu ku guuldaraystay in uu gaaro himilooyinkiisa muddada dheer ee dalkaasi Shiinaha. ugu dambeyntiina inkasta uu caalamka sanadkan 2020 la daaladhacayo xarunka corona, xaalka labada dal ee xagga ganacsiguna waa faanale faraka maqodna, waxaana door weyn ka ciyaari doontaa cidda la wareegta talada aqalka cad ee Washington.